waayo saaxiibada maanta aad baan islaamay isniin wanaagsan wiiga cusub baa noo biloomay news fiican buu baydha way ku biloomay isbuucan waana meesha aan ka filayna saaxiibayaal waxaana macquul ah bitcoin in ay waxa weeye oo the time ay cusub samaysato maadaama isniinta maanta ay tahay news fiican oo suuqa noogu biloomay hadduu news waxaan ku bilaaban lahaa waxaa dhihi lahaa dhanka kale laakiin news fiican buu ku biloomay newsada intaan ugu bi saaxiibayaal bitcoin waxay maraysaa 104,465 $24 سعودي من 0.8 ملحظي إذ أصلا سحبيال 2,500 بومريا 1.89% بالحقي كونك سحبيال سيد في عن أرقى أخوة ميم كونس إنتان نيوسو الميم كونس كون آخر قدال ما سحب أيقنا إن شاء الله إسلا أركض هنا سحب البي تي سي بقول يشكل بعد هفتي لو ساعة كهر بعد هفتي وحي كان يقولي بسطح بقول يشغاشن يبدا ولي سحبيال بقول يشكل وحسيد هفتي سطح بقول يشغاشن دولار marka BTC saxabiyaal newsfeed fiican baa soo baxay waxa rabaa marka saxabiyaal update ku dambeeyay inaad la wadaago marka aad cumrada iyo xajka aadayso waa suurtagal inaad ilowdo kaarkaaga bangiga laakiin waxa suurtagal ahayn inaad ka tagto mobilkaaga oo uu kugu jiro Wafi Digital Mastercard ku dukaamayso ku jira tigidhada ku isticmaal ATM-yada ku bixi biilka hotelkaaga Wafi Mastercard saaxiibka safarka iyo dalxiiska saaxiibada hadii aan ku bilowno Mareykanka iyo Shiinaha heshiis ganacsi oo weyn bay gaareen magaalada Geneva ee dalka Switzerland ee qaaradda Yurub bay saaxiibada ku gaareen waxa ku dhawaaqeen heshiiskooda marka maxay ku heshiiyeen waxayna saaxiibada ku heshiiyeen Mareykanka wuxuu dhimi doonaa cashuuraha badeecooyinka Shiinaha cashuuri ku soo rogeen boqolkiiba 30 buu ka dhimi doonaa boqolkiiba 45 uu ku soo rogay 30 boqolkiiba bay ka dhimi doonaa muddo 9 maalmood heshiiskaas bay wada galeen soo kale saaxiibada Shiinaha asna wuxuu waxa weeye in cashuurtii Mareykanka badeecooyinkiisa ka dhimi doonaa boqolkiiba 10 waxa weeye boqolkiiba 25 orof boqolkiiba 25 buu soo rogay marka boqolkiiba 10 baa laga jaray muddo 9 maalmood haddii si fiican ku fahansiisaa Mareykanka ku bilaabo cashuuraha badeecooyinka Shiinaha wuxuu ka dhigay 145 boqolkiiba hadda marka wuxuu hoos u dhigayaa 30 boqolkiiba 9 maalmood sidoo kale Shiinaha 125 buu 10 buu ka dhimayaa news kan saaxiibayaal waa news ka sida tooska suuqa u saameeyay isla markiiba saaxiibayaal BTC waxay gaartay muuqaalka biloodka ugu sheegay $105,390 bay gaartay marka waa the biggest news maanta isniina isbuuca bilowday keentayna saaxiibayaal suuqa inuu wada cagaar noqdo dabcan wax badan baa la filayay saaxiibayaal inay heshiinayaan Mareykanka iyo waxa weeye China almost saddex bil u dambeysay tarifiska iyo dagaaladii socday tensionska iyo xiisadihii ka dhaxay wadamada trade warkii ama dagaalka dhanka dhaqaalaha iyo canshuuraha u dhaxay tarifiski baa keenta suuqa saddex bilood inuu damo laakiin hadda waxay u baahan saaxiibayaal inuu suuqa noo soo laabanayo sababtiisa iyadoo isniin war fiican saaxiibayaal ku biloomay waxay ka dhigeen saaxiibayaal waxa la qiyaasayaa tan inay ka dhawata beats inay samaysan doonto all the time hay cusub meeshii awal joogtay inay waxa weeye si dhaafi doonto all the time keeda u dambeeyay wuxuu ahaa saaxiibayaal January 20keedii 4 bilood ka hor 109 bay gaartay marka 109 dhaafayso baa la qiyaasaya maadaama heshiis fiican labada dawladood adduunka ugu weyn China iyo Mareykanka ee hadda saaxiibayaal already heshiis fiican ay gaareen shirar badan oo socdayna Geneva oo hadda waxa weeye warqadaas ay ka soo saareen sidoo kale saaxiibayaal madaxweynaha Trump baa cryptocurrency wax laga weydiiyay I want crypto. I think crypto is important because if we don't do it, China's going to. And it's new. It's very popular. It's very hot. If you look at the market, when the market went down, that stayed much stronger than other aspects of the market. But I want crypto because a lot of people, millions of people want it. I don't know if you know that Biden went after it violently, and then before the election, he changed his tune entirely. طبعا سبب جدا صاحبي الكريبتو كوميونتي wuxuu leeyahay lama inkiri karo Chinese-ka in anaga uga hormarno Mareykanka baarlamaanka ugu soo celiyay madaxweynaha Trump waa suuq weyn community badan oo ku jira dabcan saaxiibayaal wuxuu leeyahay lama xaqiri karo sidoo kale saaxiibayaal Ethereum ama ETH wuxuu dhaafay Alibaba qiimaha suuqa market cap-kii Alibaba iyo ki Ethereum waxa sare maray maanta saaxiibayaal ki Ethereum saaxiibayaal caadi ma ahan Ethereum hadda market cap-kiisa ama hantida guud ee suuqa u taalo waa 306.68 bilyan weeye Alibaba waa 303 kana waa 6 bilyan marka isku mar maxay caan ku tahay Alibaba waa e-commerce-ga dunida ugu weyn
saaxib yaal export garayo alaadaha dunida oo dhan shirkadan China laga leeyahay Alibaba Group baan iskala Alibaba Group waa AliExpress Alibaba Tapu 68 midhaan aad u tiro badan yihiin waa company ugu ballaaran oo e-commerce-ga marka dee e-commerce-ga dunida ugu ballaarnaa Ethereum baa dhaafay oo 306 market cap-kiisa haddadan ilaa haddii aan isla fiirino market cap-kiisa waa 308 bilyan way saaxib yaal marka waa dareemi kartaa dee hadda already laba ku sii darsantay meel fog in loo wado waa dareemi karaa marka saaxib cryptocurrency ciyaar maaha cryptocurrency easy sida kala saaxib Uniswap ayaa wuxuu noqday dagsiga ama waxa loo yaqaan decentralized exchange ugu horeeyay ee gaara 3 trillion guud ahaan mugga ganacsiga ama waxa loo yaqaan all time volume-kiisa 3 trillion baa saaxib yaal dhexmarta suuqa marka waa dareemi kartaa mid ka mid ah waxa weeye exchange-yada decentralized ku caansan asaga iyo PancakeSwap marka saaxib score cusub uu sameystay ama all time volume-ku ugu weynaa buu saaxib yaal sameystay taxiga taas waxaana tusaxbaa in aad loo isticmaalo walaatiyada iyo taxiyada waxa loo yaqaano oo coinka intaan la keenin exchange-yada centralized exchange sida Binance iyo Crypto.com iyo taxida laga qalabtaa halkaas la soo mariyaa okay saaxib yaal haddii aan imaano market cap fee and greed index-ka waa 73 greed badan baa jira saaxib yaal form badan baa jirto oo hadda kala dadka post-ka soo galan beeraan all the courses ka soo danay afar maraya laftiisa saaxib yaal xoogaa waxa mudaa inuu sidoo kale ama uu soo dhawaaday by the way coin-ka xoog saaxib yaal oo ka caawaa meme coins oo laga qadiyay afar u dambeeyay Doge boqolkiiba almost 6% buu kacay afarta u dambeeyay Shiba Inu 8.3 buu kacay percent afarta u dambeeyay Pepe 40 buu kacay Ponk waa kacay coin-ka saaxib yaal laga qana Dog with had asna saaxib yaal 41 plus buu kacay xoog buu kacay guud ahaan saaxib yaal suuqa uu qurux badan yahay news fiican baa dhanka soo baxay dhankaas Sol hadii aan fiirino 175 marasa 0.5% way runtii Doge-kaasna waa ka soo sheekeynay Zui almost saaxib yaal 5% buu ku dhow yahay konkan aad saaxib yaal u soo kacay maalmaha loo yaqaan Pi wax badan waa ka hadlay boqolkiiba 55% buu kacay 1.5 maalmo 0.7 mariyay loo bay ama hal bil kale fiirinay وجد هذه نحوي almost وسوق سحب يال 0.55% وسوق تكون كلا يقال باي أنا مشروع من إنه يهم مثلا لكن كومنت بدن بولا بدن رواية استند بدن با أصلا تقال يال ضربها سحب يال كون كأصلا شخصيتي يا سحب يال وأركنا أسبوع عن سقول بدن بون نوجو بلومي يسوى وين بصوب هاي مركب وأركنا هذه محاكولة تاعي بيتكون مقالة دونتا أول تاعي عصمة سنة دونتا بقول تمام كوني كبد المكان تونتا كومنت إن شاء الله نلوك سوداك أدبن سحبة إن سلام يا تشاو تشاو